السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلنتي وعنا وناكسن أغيارتا نداوانaysa kusoo dhawaada barnaamijkeeni madasha haddii bogeena uu subscribe saaro haddii Facebook uu follow ku ahayna sidoo kalena soo follow gare si aad u hesho warbixinada iyo waliba barnaamijyada aan idin soo tabino barnaamijka waxaa maanta martii wax gudoomiyihii hore xaafadda Barwaaqo ahna musharaxa xilka wakiilka deegaanka Barwaaqo Chief Aadanow soo dhaw aad maasanta marka hore waxaan rabnaa inaan ku weydiino bal waa kuma Chief Aadanow taariikhdaada maxaa xeel soo qabatay bal faahfaahin naga sii bismillaahir rahmaanir rahiim alxamdulillaah rabbil aalamiin aad baad u mahadsantahay labadiina waad mahadsantihiin saad u soo dhaweyseen arrintan wareysiga anaga magacayga aadan ali axmed laakiin waxaan ku magdheeraa Chief Aadanow waxaan dhashay horta 1962 griftan ku dhashay from 1972 ilaa al'aana waxaan deganahay Barwaaqo iskuulka waxaan ka bilaabay Jubbaro Primary School 1974 1980 aan ka baxay waxaan sii aaday Saabulle shaqada waxaan soo qabtay meelaha qaar waan ka soo shaqeeyay postada waan ka soo shaqeeyay waqtiga dhajiri Kenya Post and Communication iyo other NGOs shaqada chiefka 1997 bishii afraadaan yaan galay waxaana ka baxay 2021 haddana waxaan u looltamayaa kursiga baarlamaanka hoose gobolka Barwaaqo intiin chief horta alxamdulillaah locationkaas waxbadan baan ka qabtay markii chief loo qoray school primary Jubbaro oo labada xaafad u dhaxeeya iyo Saabulle oo secondary kala ka jira location workers qalqacha yaan bilaabay primary school waxaan ku hajiyay school oo gabdho second in fact that is second girls primary school in town markii laga soo tago midkan kale oo girls oo yara Barwaaqo girls primary school waxaan kala dana aan furay waxaan kala xagga tacliinta school hadana Bangal Primary School yira oo within Barwaaqo location waxaan kala dana aan furay secondary oo Barwaaqo Muslim yira waxaa igu sababtay ama igu dhalisay inaan Barwaaqo secondary ka fulo maadaama bulshada reer Barwaaqo badi ay sabool yihiin oo awoodin schoolka boardingka schooladan kala dayn as ka fogyahay shalayta okota waagbari iyo Makoror aniga iyo dad kale madaxda waxaan ku tashanay in aan school day aan ka furno meeshaas sidaasaan ka furnay Barwaaqo Bex marka dambe waxaan noqday wajeer oo iskuulada waxaa kala dana aan ku xajiyay school kala gabdha naga u danayna girls education oo haddana magac lagu daray Sifaano Chief Girls Secondary Schools xagga tacliinta waxaan intaan chiefka aan ka qabtay xagga caafimaadka dispensary ugu horeeyay central ka jira haddii laga soo tago mas'uulkan weyn yaan ka bilaabay Barwaaqo waxa ku xigta Hodan iyo Waagbari xagga amniga oo security waxaan aaminsanahay aniga shakhsiyan xaafadda Barwaaqo kuma ekeen waxqabadkayga xagga amniga ma alla meeshii asdib ka jiro waad ogtiin Soomaaliya markaas waa la isku dhacaa bas waa laga yeeri jiray oo dadka maslaxadan ka shaqeyn jiray haddana noqoto laba location han noqoto laba beerood xagga amniga wax badan ka qabtay waxa kale oo jirta qofka diisan madaxya waxa wanaagsan dad waxay ku dayda inaad suubiyo nafahanteedana beerayna waa xolayna waa anagoo ula jeed dadka inay shaqeystaan haddii xolatay haddii beertay waxa laasan soo qabtay xagga dawladana record aan kala ahaa markii waraaqdii imaatana dawladdu waxay rabtay in muddo liigu daro laakiin ana iri intaan ka badan ma sii wadi karo sidaasaan shaqada jiif uga baxay hadda xilka waxaa shaacaysa inaa u sharaxan tahay xilka wakiilka deegaanka Barwaaqo xilkan inta badan MCA-ga waxaa isku soo sharaxaan daayar ama dhalinyaro adiga maxaa kugu dhali
waxa horta aniga fahantayda hadama shaqada jiifan qolgabka noqon ka baxay kaale madax kale noqo iguma jir marka hore laakiin waxaan lahaa barwaaqo wood in qof oo maaragta madoo dhan isu keeni kara ay ku kalsoon yihiin badana dadka xoogoo dalkan yar Soomaalida guud ahaan dhaqanka tolka iyo maamulka tolka way maamulka waayo madam tunad ay yartahay marka aniga waxaan jeclays marka dadka inay dhaho war ummadan qabiil ma aha wood ma aha qof oo maaragta u noqon kara mfano ama ku deesha meeshuu ka soo gala ilaa county isu keeni kara aan raadin dadkii ayar marka waxa sheegaysa waxaan ornaa ninka ku habboon oo haddana khibro u leh xagga maamulka intaad meesha sii joogtana muddo dhan ay kugu kalsooneed waxay doorbideen marka in aniga aan meesha isu soo sharxo marka waxaan dhihi karaa rabitaanka xagga dadweynaha ka imaan dhinaca dadweynaha oo ka imaan diintana waxay qabtaa madaxtinimada haddii raadiso iyo in lagu raadiyo haddii lagu raadiyo inaad ogolaato inaad aqbashid anigana maadaama kaale ummadan bal danay dantooda waan ogolaaday because waa jirtaa aniga waa nin oday ah dad yarna oo waa jiraan oo wax qaban kara ilmaha marka xoogoo meesha ay waxyaala qaar ay khibro u leheen haddii tacliinta ma og laakiin haddii maamul tooleed tahay in ay aqoonba u leheen ayagoonba kas u yeelin marka dadka waxay bideenba waqti hadda la joogo waxaad moodaa dadka guud ahaanba reer Wajeer inay doorbidayeen madaxda hadda jirto in dad oo rugacda ama dad oo wax soo talin jiray inay meesha ay soo galaan ayadoo ku rajaway in isbedel ay meesha ka imaan karaan taas ay ugu dhalisay ayna waa ogolaan soo marso dhigi karo xil inta badan dhalinyarada ay u tartamaysa ku cariirinaysa waa dhici kartaa horta ilaahay ka soka dadweynaha ay ku xiran tahay nin oday oo dad nin dheeriya ka fiican waa arkara nin dheeriya oo ka fiican waa la arkaa aadiyad laakiin dadka waxay u doorbideen maadaama nin hadda koraba talin jiray soo tali كل هدين نحن أنا هلا لو ما صح شانه ما بدهين إن كان عدد إلى دافع ماشي كسر عليه أنا جنا وحن كوكل صانع أنا مركب ماشي أنجوي شيف قبل ما هي شيف خير وجرانه حدنا وحن وحكت دونا أما أن أنا إدرت أن ليه ما هدين كده شكلها هذا في كي جنا وحوا إن أن النقطة tusaale kulli birri hadii inaad ikasoo hadii ilaa ikasoo aan soo galana umrigeena waa kaas bal kaale hadana meeshii joogana ma qabi laakiin kaale mfano fiican oo birri dadka ay dhahaan war dad noocaas aan doran ninka madaxdana qof haduu madax yahay qoyskoo madax ma aha ummadoo dhan madax in wanaagooda iyo horumarkooda askatela marka hadii dad noocaas oo fikradaas qabo hadii ay meesha imaadaan waxaan ku rajo inay isbedel as la helo oo wax iska bedelayeen مثلا أنا قدر وحنا هدرت يرجوراء أمر الحوار دقته هذا الحمد لله إله بهرب نسي وحجر تبارك تعالى إن أمضى مرك حلق الراب كي هديته علماء هديته سياسي ومدة الحقادة وهي قيرات إله نسي سوى النماء سياسي الماء برت كو ذاقان تاس مركه وحلي في إنجليز تو إنلايت أما لكن وحس لبره تاسا مركب برنامج كيجي وهدي إله مشهد إكسو وده كان لقولا عليه وحا لوكيشن إيو كونستيتنسي إيو سب كابتي إن لقوك الحرنانين تتكدد ولا لا أوي وحا لوحي إلاسي أي سلقي بسدان أنا وحا من سومالي دي ناتشرالي سوشاليست سومالي سيطة إله بأبور كذا وحي هاستوى سلعون عين إنكسو بريان وحا دتك كالفوق سياسي marka policygaas hore oo dadka la fukuri ku dad soo dhaweena in dad loo helo oo isu keeno taasna diinta ay qabtaa this is one of my policies aad ma santahay
haddii aad xilkaas ugu guuleysato maxaas leedahay bulshada oo qabanay waxaan leeyahay insha Allah kulle ilaah baa haddii ilaahay nagu waafajiyo insha Allah awal horta midnimada dalka iyo dadka iyo wixii kheyraadka waddanka imaado si xaq in lagu maamulo oo lagu qaybsado oo ninkii meesha matala aniga haddaan MCA meesha ka noqdo wixii kheyraadka ama resource-ka warkaas leeyahay aan qoyskayga kale aan seenino intii meesha degan xaqa u leeyihiin loo qayb taasna ay u noqoto ku deesha ilaa county guud ahaanba nidaamkaas waxaan u leeyahay marka aan haddii aan meesha aan ku guuleyso kaale waxaad ka qabtaana ka mid ah midnimada tolka wanaagooda xaq wixii kheyraadkooda si xaq loo qaybsado hoggaan wanaagsan iyo maamul wanaagsan haddaan soo gaabiyo waadan ku fahmay maalinkii lagu soo qaaday waxaan u jeeday dadkii ka soo qayb galay qoyskaada oo kaliya ma ahayn miyaa la isdhihi karaa qoyskaada kuma soo qaadanaa waxaa isku soo qaadana shacabka xaafadda barwaaqo dhan waa jirtaa waayo waxaa sababtay taas waa run waxay meesha imaaday hostan ka dhashay kala baxa weliba dad badan ay qabsada maxaad nooga dhawaaqi waysa oo reer barwaaqo ah waxaan aaminsan taas waxaa sababtay maadaama aniga shalay baa nin oday oo reer wajeer aan ahay haddana موقفكين آسا وجرمك عليه وحكون راس وجرمك عليه وحكون مامل iyo wixii shalay ahaa sidan ahay taas sababtay dadka inay xafladda niyad ama inay ka soo galaan waa nin hadda hore la arkay wixii yahay hadii dad qaybina ama hadii dad aasya taas sababtay anigana policy-gaygu waa kaasba maadaama shalayna chief aan ahay chief ummadoo dhan aan ahay chief qoosma ahayn hadii MCA noqdana MCA tol dhan aan noqona si MCA qoskoma noqona marka taas sababtay aqoontii leelaha iyo sidaan maamulkeegii hore oo ummadda mata ay jeclaadeen taas sababtay in ummad nin walba ka soo qayb galo iyo in badan oo haddana meel kasta telefoon isoo dirtay ayagoo i hambaliyayna ayagoo leeyahay anagoo dhan gacan aan ku siinayna si soco inta badan gobolka waqooyi bari Gaarisa waa chairman dheera waxaa dhacda markii qof la soo qaada in odayaal ay soo qaadaan ama beel ay soo qaado oo inta badan la yiraahdo negotiation democracy bal adiga sidee u aragtaa arrintaas أنا waxaan aaminsanahay wax kasta sidii xaq hada lagu maamulo dib malaha negotiation democracy oo qof la riixa ama qoys la riixa haday ahayn hadii qof bangana qoys yar ka dhasho laakiin ninkaas qabo nin haduusa ummadda wanaag iyo hormar inaas ku hadii loo arko idoo beeltiisa ay aan la fiirin in heshiis lagu soo qaado ku jirta heshiis oo democracy-ga oo what do you call the negotiation haddii laakiin si qalad loo isticmaalana dhibkeeda leedahay taas waxaa uu leeyahay negotiation democracy dhib ma qabto ilaa tu si cadaalad ah oo xaq ah in lagu soo xusho qof iyo qofkaas dafcaantiisa ama ha noqoto bilaan ha noqoto rag idoon loo leedinkan cidaas ka dhashay qofka ma anfaca inay noqoto objective ninkan reer wajeer ma anfaca ninkan warka ma anfaca ninkan MBA ma anfaca ninkan ilaahay ka cabsana maya because haddii aad madax tahay ilaahay baa kula xisaabtama nin horta ilaahigiisba ka cabsana haddii dulun aad suubiso inaad berri cariiri ku geli qof noocaas waxaan aaminsanahay in criteria loo suubiyo nidaamka qof lagu soo xela waxyaalo badan oo diinta ay waafaqsan marka iska soo xulasa maahane in loo suubiyo criteria or modalities that one can qualify to be a leader nidaamkaas haddii lagu soo xulo waxba qabtaan aaminsanay laakiin waxaa dhacdaa inta badan in qof si wanaagsan wax u qabanayo oo xil loo dhiibay xilkana si wanaagsan uga soo baxay dadaal badan samaynayo in haddana laga bixiyo xilkii oo qof kale beesha ay soo qaado waa jirtaa horta Soomaalida wax qabad dadku ma doorato haye laakiin adiga waxay oo wanaagsan oo suubisay ilaa baa ku
ku holmarina ilaa baa ku marata ku soo gareyna adiga haddii horumar soo biso ama ummadda si u maamusho binaadan haba ka rajaynay qofkana biriya wax isiina milaj ilaahay sababtiisa xaq u suubi haddii dhacdana oo ayaga si dulun hadaa ku gur qofkaas xilka laga qaado ilaaha ku jaazaan inaad wax wanaagsan ilaahay iskugu bedelo yaa suuragal marka waa caadi waxaad arkaysaa qof wax qabtay laakiin binaadanka waa wasaas Soomaali kale ma meelo badan arki doonta dad ka bixisina hadhow dib male binaadanka hadda fiiri Liibiya oo kale Qadaafi waxaas wadankaas xeerkaas gaarsi iyo wixii lagu dhigay iyo si lagu dilay hata Soomaaliya yani hore Soomaaliya Maxamed Siyaad Barre waad baqasheen kulli 20 sano wadanka maamulay gurina kuma lahayn Soomaali uu kale hormarto markii dambana taas waa caadi binaadanka laakiin adiga madax tahay ku xisaabtan inta xilkaas lagu dhiibay in ilaahay ku xisaabtama xaq u maamul bas haddii lagu doortana alxamdulillah haddii kan rabbil caalamiin waxa uu ka sii xun in fursadaas heshay oo dadka ku dulanto oo aakhiraan su'aal kale ay ka horeyso way wanaagsan tahay taas waxa u baahan tahay Soomaalida anaga dadkayna waxa laha dadka in oo marta loo sheego waxayaan sheega midnimada waxay kamid tahay war qofka ayaa wax noo tar aan dooranodi ay soo gali haddii marka saas ay yeesho ummadda way midoobi ninkii wax tarna meesha waa uu sii wadana hooshina waa wada laakiin xoogaho dadkii fikradaas ama ma qaadanin taasaa ku jirta marka waxaa loo baahan yahay dadka in wax sheegis maaha wax tus to be if you are leader show good example haddii waxaa tahay nin Benguela chief ama MCA dad qaad cuna dad adiga cunays waata sigazaba weeyna kula you show an example for people to emulate you as a leader waan gartay inta arrimaha siyaasadda aan ka sii bixin inta badan markii siyaasiyiinta ay soo sharaxaan dhaqaale fara badan kaga baxa inay kursigaasi helaan iyadoo qaar ay dhacdo in iyagoo deel lagu leeyahay ay soo galaan arrintaasi maxaa ka dhihileed bulshada inta badan qofka markuu soo galay dhaqaale badan ay ka qaadaan markii loo barbar dhigo Keenyada kale gobolka waqooyi bari waa jirtaa waxaad arki kulli nin MCA doorasho galay ama helaba asagoo deyntii ay ka bixinaa madana kursiga iska sii bax ani waxaan amsa waxala oo dad in laga sax u baahan oo sida qarashada lagu yareeyna dadka inay policy ay dadku doortaan mabdi'an qofkan waxaad u dhisayso inay lacag noqonin oo wax qabad noqoto adigana haddii wax qabad baad ku socoto inkastoo harbi dhaqaale as jiro lacag qarash baxa but you minimize as much as you can because lacagta nafahanteeda haddii si xun aad u baahan idina dhibkeeda leedahay dadkana waa ku sii halaabayba marka ani waxaan aaminsanahay waa jirtaa waxaana sababay dad gadashada nin haddii dad gatana berridkaas kuma danayna marka dadka in laga dhacsiyo ama la wacyigeliyo war ninkaad dooranaysa mabda ku dooro wax qabad ku dooro qabiila ku doorane lacag ku doorane haddii marka asaga barnaamijka aas wado inaad ku anfacaad u malaynayso dooro haddii lacag aad ku doorata inaan beri loo qiimeynina ogow marka dadka in sidaas la baro intii la kara horta la yareeyo qarashkan badan haddii is jirana ninkii deyntaas bixina kulmaas wax ku qoran horta dadkana faanto inay taas ogaadaan taasaan leh waan gartay intaan arrimahaasi siyaasadda markaan dhinaca kaga baxo dalkani Kenya wuxuu yeeshtay dastuur cusub 2010 kaasoo noo sahlay in dawlad wadaajinta ama devolution kala helo sida waaragtaa dhinaca isbedelka ismaamulka Wajeer markii loo eego xilliga hore iyo hadda horta isbedel weyn aan arkaa waayo anaga dhaqaalaha zamaani waxa hadda helayniyo waxa helay wax la super barbardhigay maaha
dastuurkaas annaga wax badan oo faa'iido noo keenay waayo waxaad wata wajeerna fahanteeda waqtigaas iyo waqtigan isku mid ma aha horumarkeeda waxqabadkeeda bin aadan waa qofka beengeena maamulaya inaas wax qalda waa dhici karta laakiin guud ahaan dastuurka annaga gobol ahaan waxaan haysanay iyo wax ka badan baa noo soo kordhay wax badan markaas waxaan arkaa inay faa'iido weyn ay noo soo kordhisay oo dakhli badan dhaqaale ay noo soo aan helnay isbedel asba muuqdo isbedel inkastoo la waynaynin kasoro wax ugu dibadhac laakiin ani waxaan aaminsanahay wax weyn oo isbedel oo la muuqdo oo la taaban kara yaani asno kan dastuurka aadan ku fahmay inta badan waxaa dhacda markii qof Soomaaliya xil loo magacaabo xil sare inta badan in qofkii dadka qaar ay ka hor imaadaan maxaa u soo bayay isleedahay أنا تعرفت إنه ولا كهو وحلسي أنا ما دام من درس لا أنا وحاس إلهي كو قرن بعد هلي هدي أديك ولا كم ساعتين كهدي لسي إن أب قاعد يسوق أو تكفر هذا هو نكسر وحانا مركز الثواب بدنا أو ضدك مركي يقفكوا حلوة دي كان كلك قبيل أنك قبل كان ما سيدنا هانجرنا سيدها أدعنا الحمد لله وأنا كفر حسنا ما ده أنك هذا مال سر النجود ينكسر الشقق جود ودنك عيان لكن وأنا رسمي ماشي كإمادين إن هدنا أن سج جونيه أيو فيرين marka taas waxaan leeyahay dadkii nin walaalo wax la sig oo dhibsana waad qaldan tahay inaan dad mid aan ahaano magac Soomaaliya aad mid noqdo ninkii wax la si anagoo dhan aan ku farxano aan muujino walaaykaana buu helay marka taas fikradaas way xunta in laga waanto aan qabaan insha Allah Soomaalida sidee qabiil looga saari karaa maskaxdooda qabiilka Ilaahay Quraankiisa ku sheegay waxa looga saari karaa aniga aad iska bilaabay horta aniga law walaalo Soomaali Islaan baan ani waxaan aaminsanahay haddii hooyada ay dhashay oosba xumaantaadu ka shaqeynaa walaalka ma aha ninkan kale oo magac soo wanaagtaan oo wanaagaada iyo dhibkaada dhibsana haddii marka dadka fikradaas isqabsadaan wali qabiil kale oo dadka la leeyahay war dadkan waa dad oo fikradii xumeed oo qabiilnimo aan qabin waxbana jirad oo magaaladan dad oo saaxiibo ah oo magaca hebel ma wax kala isweydiinaynin marka dad oo u soo baxo ama hoggaan u soo baxo oo dadka tusa in qabiil aad ku shaqeynaynin qabiil kale aas u danaynaynin qabiil kale aas madax u ahayn ummadda wax wanaag markii aragto waa lagu deena asaasan aaminsanahay inkastoo magac qabiil la baabi'in karin لكن سوى ناس إن له استعماله لكن وحي كلنا لسكاشد مع Soomaali ma amsanima yaan qaba ni alla ninkii dad qeybinana asaga gooni ama la takooro asan amsana ada ma sata hada waxa xilka haya dalka madaxweyne William Ruto oo inta badan gobolka Waqooyi Bari Said ugu soo laabtay dhinaca wax qabadkiisa gobolka ka waramay wala ani qofku ana haddii anaga reer North Eastern ama Northern ama Pacific jumla madaxweynahan waa kan anaga madaxweynahan waa kan waxiisna tusana wax cadwa wax cadwa haddii tahay oo dadka anaga nasiina dawladda dhexdeed haddii ay tahay wax qabad konfano tu hapa wajia stadium waxa laga dhisayaa stadium heer sare oo international mid casri ah haye waxa leeyahay hore oo anaga lagu la takoori jiri oo kitaabulsho ay kamid tahay wax badan ninka marka waxa isku anaga waxaan aaminsanahay madaxweyne Soomaali ka lagu doorsanayo ninkan Soomaali ma aha ma dhikar waa madaxweyne Ilaahay noo keenay inaan garab siin oo wixina maqla Soomaali intaan ka baxno yaa islaambo aan dhaxno yaa nagu haboon waxaan aaminsan ninkan ka fiicna Soomaara inaas jirin
haddii qabiilnimo laga baxana ilaah baa dadai kara laakiin nin walaal haddii wax la sii adi magacaas leedahay marka waxaa leeyahay madaxweynahan madaxweyne Soomaali waay reer Soomaaliya reer gobolkan waay inaan garab siino wax waa noo qabtay tiribka la hadda ku soo noqdana wax baa noo kordhaa ani waxaan ku boranaa dadka pastoralist community xoolo dhaqata ama reer NFD guud ahaan inay madaxweynaha gacan siiyaan oo sheekadan hoos la iska dhaafo yaan qabaa madaxweynaha waa madaxweyne anagii waxbadaas noo qabtay waxbadaas na tusay anagana abaalkiisa aan ku naqba shakhsi ma fiirinayni ana shakhsi adeeda wax la siimo mali laakiin tii guud aan fiirina haddii noqoto gobolka haddii noqoto magaca Soomaaliya waxaa jira kuwa ka hor imaasan waxay uga hor imaasnaa isleedahay waxaan aaminsan taas waa interest gooni personal selfish waxyaalaha qof gaar ah ama xin nin kale walaalkiisa wax la xumina way moogi ninka marka moosha guud marka fiiriso waxaan u maleynayaa cid maanta wax la siin ma jirto Soomaaliya cid walba wax la sii haba yaraatee annaga u yaraa juuraan ba PSN marka hore dawladii hore PS mina keenay jir PS ha ma keenay jirin COEco ani waxaan aaminsanahay cid qabtan ma jirto annaga waxa sheegay annagana wax baan la sii adiga waxa u taagan tahay xilka barwaaqo ward Soomaaliya inta badan dadka xaafadaas degan qaarkood waxay aadaan waqooyiga north halka qaarna dhinaca dhacda masaajidda ay aadaan maxaa dhigay arinta ka dhigay very good waxaan dhihi lahaa horta meesha deganta aad xaqaad as yaala meel aad degan haddii aad ku ka goosto oo rido oo meesha ku soo noqoto xaqaadii oo meel ku soo tur aad ka soo noqoto way dadku waxaan leeyahay dadku waxa dhuminaa dad dantooda gooni wada dad aan dalka iyo danta tolka u danayneen waxa la aan ka hadlaa kamid ah qabiilnimada wax dad loo gura taas way dadka meesha ay joogaan ayaga qofku ha doortaan ama qof kale ha doortaan laakiin ximintooda iyo xaqooda meesha ay degan yihiin jira marka waxaan ku boorina nin walba meesha joogo kura ka rid kura ka gooso ninkaas dooro ximintaada meesha ay jirtaa laakiin meel ka daad tagto xaqaada dhumis ogoon baan leh ada ma santahay chief ugu dambeyntii nin way aragata waqti badan soo joogay maxaa tala u jeedin lahayd dhalinyarada haatan waxaan u jeedin lahaa wadanka ilaahay ka soo idinka iska leh inaad tashataan talada ama hoggaanka dalka iyo dadka idinkoo binaysan idinkoo muwaafaqe inaad u tashataan sida hoggaanka aad la wareegtaan inta idinka isxarbinaysiin oo iscunaysiin odayaasha waa un talinayeen waxaa laga cabaada odayaasha laakiin wax dad oo tashana oo hoggaanka ama talada ka qaada yaan lahaynin marka waxaan leeyahay dhalinyaro oo tashanayso oo dalka iyo dadka wanaagiisa maslaxadiisa ka tashana noqdaan leh waxaa socotaa diiwaangelinta codbixiyaasha baaqaada ku aadan in kuuraha la goosto waxaan leeyahay horta dadka reer NFD ama gobolka kura inay qaataan sabab badan inay u qaataan awalan waxaa la leeyahay dadkan kura maxay dadku dooranaya waxaan kura u yaraadana kitaab bulshada ahayd maadaama kitaab bulshada hadda noola fasaxay dawladda ay shal ugu dambeeyay madaxweyne Asbaanista ka hadlay inaan qaadano kitaab bulsho inaan qaadano kurahaasoo dalkina madaxweynaha dalkina hadda aad intaas noo qabtay inaan ku abaalgudno asagana kura badan naga helo annagana dad wanaagsan oon ku dooranno adigana waaba xaqaade hadhow madaxuna adiga dad ka gaabsato waxaa suuragal ah nin xun inaad soo galo adoo xaqaada yeela inaad kuraha qaadano marka dadka waxaan ku boorinaa kura hal la qaato aan leh jiifadana aad u mahadsan tahay sida wanaagsan barnaamijka maanta noogala soo qayb qasho waan kaaga mahadcelinayaa fursadda aana siisay aad iyo aad u mahadsan jazakallah santi odayaal intaasi waxaan ogaag barnaamijkeena madasha oo idila socodsiinaya anigoo Maxamed Shaafic aan ku intaan mar kale hawada kulmi doono waxaan idin kaga tagayaa sidaas waliba ismaqal dambe oo xiiso leh